sanad walba waxaa ifka u soo baxa kumanaan minxooyin ah oo u ogolaanaya ardayda dadaalka badan iyo kuwa ku taamaya helidda waxbarasho ka tayo iyo mug fiican waxbarashada dalkooda inay fursad u helaan rumaynta riyadooda. minxooyinkani ayaa ah badankoodu kuwo daboolaya baahida waxbarasho iyo dhaqaale inta uu ardaygu marxaladda jaamacadeed ku jiro, sidoo kalena ka caawiya ardayda la qabsashada iyo dhexgelidda dalalka cusub ee ay u hayaamaan. laakiin nasiib darro, ardayda Soomaaliyeed ayaa ah badankoodu kuwo ka ooman fursadani waxbarasho. waxaadna arkaysaa kumanaan dhalinyaro xambaarsan hibooyin iyo karti u ogolaanaysa inay la tartamaan ardayda dhigooda ah, laakiin nasiib aan u yeelan helidda minxooyinkaasi garasho la'aan, aysan garanayn wadooyinka suuban iyo qaabka ugu habboon ee la isugu diyaarin karo helidda minxo, iyo weliba waxyaabaha ay waajibka tahay in laga feejignaado marka aad scholarship dalbanaysid. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah wadooyinka ugu habboon ee aad ku damaanad qaadi kartid helidda minxo waxbarasho sanadkan soo socda. kusoo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. khaladka ugu weyn ee ardayga raba helidda minxo samayn karo ayaa ah sugitaanka inta ay ka bilaabmayso xereysashada minxadu. haddii aad tahay arday raba inuu ka mid noqdo guulaystayaasha tirada yar ee sanad walba nasiibka u hela helidda fursad waxbarasho oo bilaash ah, waxaa khasab kugu ah daawade inaad xilli horeba usii diyaargarowdid loolanka adag ee ku sugaya. macquul noqon mayso inaad 15 beri gudahood waxaad isku dhoodhoobtay aad kaga guulaysatid arday kor u dhaafaysa 150,000 oo arday oo badankoodu bilo iyo sanado usii diyaargaroobayeen ugaarsashada fursadan. sidaasi awgeed ogsoonow daawade in tallaabada koowaad ee aad ku heli kartid fursad waxbarasho bilaash ah sanadkan ay tahay bilaabidda diyaargarowgaaga xilli hore. inaad haysatid baasaboor shaqaynaya, shahaado qalinjabineed iyo shahaadooyin kale oo kaa caawin karaya helidda minxo waa waraaqaha ugu muhiimsan ee uu arday walba ku khasban yahay inuu sii diyaarsado ka hor xereysashada minxo nooc walba oo ay tahayba. macquul ma ahan inaad heshid minxo waxbarasho dalka dibaddiisa ah adigoon haysan baasaboor, sidoo kalena ha ku fekerin helidda waxbarasho bilaash ah adigoon haysan shahaado qalinjabineed, marka laga reebo inaad tahay arday sanadkan uu yahay sanadkiisii ugu dambeeyey iskoolka. haddaba daawade, shahaadada iskoolka ama jaamacadda iyo sidoo kale baasaboorku waa xogta ugu muhiimsan ee arday walba oo rabo minxo dalka dibaddiisa ah laga rabo, halka waraaqaha kale ee soo raacana ay yihiin oo keliya kuwo kor u qaadaya fursadda aad ku heli kartid minxadaasi, sida shahaadooyin dheeraad ah inaad haysatid iyo wixii la mid ahba. mar walba isku day inaad iska diiwaangelisid minxada aad aragtidba si ay u kobacdo fursadda aad ku heli kartid mid ka mid ah. waxaa dhacda inaad 20 minxo oo kala duwan iska diiwaangelisid, hal mid oo ka mid ahna aad ku guulaysatid, laakiin marnaba ha ka dhigin naftaada mid ku koobnaata hal minxo oo aad u aragtid inay tahay tan ugu mugga weyn. marka aad dooratid dhowr minxo oo kala duwan, waxaad kobcinaysaa fursadda aad ku heli kartid mid ka mid ah, halka ay ka dhici karto in marka aad hal minxo oo keliya aad iska diiwaangelisid aadan waxba hesheen. qof walba oo inaga mid ah waxaa hubaala inuu aqoon durugsan u leeyahay naftiisa, garanayo samaanteeda iyo xumaanteedaba. haddaba isweydii daawade su'aasha ah, ma ahay qof u qalma inuu u tartamo minxo ay loolankeeda ku jiraan kumanaan arday? haddii ay tahay jawaabtaadu may, waxaad haysataa weli jaanis iyo fursad aad ku kobcin kartid naftaada intaan la gaarin bilowga xereysashada minxooyinkan. haddii ay tahay luqadaadu mid hoosaysa, muddadaasi kooban ku dadaal kor u qaadideeda. haddii aadan ahayn qof leh khibrado iyo tijaabooyin kor u qaadi kara fursadda uu ku heli karo minxadan, haddeerba waxaad haysataa weli waqti kooban oo aad ku kasban kartid tijaabo kaa dhigi karta mid il gaar ah lagu eego codsigiisa, sida inaad shaqaysid ama aad samayso howlo tadawacnimo ah
ogsoonow daawade in waxa ay ku guulaystaan ardayda hesha minxooyinkan ay yihiin oo keliya howlaha yaryar ee ay horay u soo qabteen, taasoo ka dhigta kuwa u muuqda kuwo dadaal badan, sidaasi ayayna mudnaanta koowaad ku helaan. waa hubaal in minxooyinka qaar ay weli waqtigoodii ka harsan yihiin bilo iyo isbuucyo, laakiin haddeerba bilow daawade inaad isa sii diiwaangelisid oo aad akoon sii furatid, waraaqaha iyo xogta lagaa rabana aad hadda sii xiraysatid si aad fursad ugu heshid inaad horeyba u sii ogaatid waraaqaha dheeraadka ah ee lagaa rabo, sidoo kalena aad codsigaaga waxbarasho marka la furo xiraysashada minxooyinka aad horey ka dirtid, taasoo sii kobcinaysa fursadda aad ku heli kartid minxadan. waxaa jira muuqaallo aan horey ugu sharaxay minxooyinka ugu muhiimsan qaabka aad isaga diiwaangelin kartid, waxaadna ka heli kartaan description-ka hoose. ugu dambayn daawade, waa hubaal in helidda minxo waxbarasho oo aad ka heli kartid waxbarasho bilaash ah iyo gunnooyin lacageedba ay tahay mid adag marka la eego loolanka adag ee loogu jiro, laakiin ma ahan heliddeedu midaan macquul ahayn. ogow inay jiraan sannad walba kumanaan arday ah oo hela fursaddani waxbarasho, qaybtoodna ay dhowr jeeroo hore ku guuldaraysteen heliddeeda, laakiin ku celcelintooda joogtada ah iyo niyad jabla'aantoodu ka dhigtay kuwo gurta mirihii dadaalkoodaasi. adiguna sidoo kale daawade, haddii aad raacdid dhabaha saxda ah ee aad ku heli kartid fursadahan, sidoo kalena aadan niyad jabin, waa hubaal inaad heli doontid minxada aad ku taamaysid.